بسم الله الرحمن الرحيم. welcome back marka laga soo dhawaado qaybtii imtixaanaha waxaan ku dhex jirnay duruustii imtixaanaha socda waayadan dambe chapter 3 ee dhaxlo maray waxaan ka soo hadlay overall 3 wuxuu qabanayo iyo meesha u socono iyo xogta nooceeda ayaa ka soo hadalnay kan oo continuation oo sii soconaya haddaan ka hadlo si guud ahaan wuxuu 3 ka hadlayaa chapter 3ga waxaa u naqaanaa describing data ama numerical measurementyada isticmaal doono almost chapter 3ga waa shaqo iyo xisaabaad waay calculations waay mainkiisa ama muhiimadda oo leeyahay chapter 3ga laba qayb ahaayeen saa hor u sheegnay waxay ahayd in haddii lagu siiyo tirooyin kala duwan oo different numbers ah laakiin hal qayb ka hadlay income oo kale expense oo kale age oo kale weight oo kale height oo kale iyo marks oo kale waxay noqotaba qadii halkaas xogtaas noocaas laga hadlayo different number مثلا markeska 100 arday 500 arday 1000 arday maybe income-ka 5,000 oo qoys income-kooda kale oo different numbers kala duwan age-ka da'da 100 ruux oo kale waa hal qayb soo qaado marka waxaan rabnaa in da ama income waxa noqotaba inaan soo saari karno markaan chapter 3 joogno laba concept oo ah waxaan u bixinay central tendency-ga iyo dispersion marka waxay aad marka guud ahaan soo koobno haddii lagu siiyo tusaale ahaan 100 qofood da'dooda ay qoraan 30 jir 40 jir 50 jir 20 jir 60 jir 10 jir 3 jir 4 jir 5 jir 9 jir markay qoraan xogta ay qoraan meel lagu keeno xogta waxaa u naqaanay ungrouped data ama raw data xog ceriina oo aan nidaamsanayn kadib waxaan ku khasbanaanay xogtaas oo ungrouped ah inaan hagaajino aan da'dii aan soo qornay isku hayacsineed aan ka dhigo group مثلا dadka 5 ilaa 10 sano jiro inaa group ka dhigo dadka 10 ilaa 20 jiro inaa group ka dhigo dadka 20 ilaa 30 group ka dhigo kadib ka xog soo baran jabtar xog soo barnay in xogtii oo nidaamsiisnaan aan nidaam ka dhigi karno kadibna ay saan noqon karto xogtaas marka la ay qoran tahay waxa uu naqaanaa ungrouped data laabash marka nidaamiyo waxa uu naqaanaa data group okay xagga marka marayno information-kii aan soo qornay ee da'da ahaa 100 qofood soo qaadanay markaysan group ahayn ma fahmi karno si loo fahmo loo analyze gareeyo waxaan ka dhignay group fine markaan group ka dhigno before group markaan chapter 2 joogno waxaan barayay haddii lagu weydiiyo 100 qofood da'dooda soo qaadatay ku qorneed baa loo bixin laga sii haddii lagu weydiiyo that question answer-keeda waxaa ku sii doono chapter 3 ilaan 100 qof inaa sheego da'dooda sheego micno ma sameynayso qofku wuu daalaya inaa taani 100 qof ahaya hebel 10 jir waayo hebel 20 jir waayo 30 jir waayo 40 jir waayo 50 jir waayo it does make sense micno ma sameynayso marka waxaa rabnaa qofkan warbixinta loo tabinayo inuu ku fahmo the shortest way oo dhihi kara yes waa gartay maxaa isticmaali karnaa chapter 3 maxaa u naqaanaa central tendency-ga iyo dispersion marka tusaale 100 qofood da'dooda markaan fiirino waxaan sheegi karaa centerkooda average-kooda celceliskooda oo waxaan leenahay dadka markaan fiirinay average ahaan celcelis ahaan waxay jiraan 29 sano qofku wuxuu dareemaa marka dadkaas inay yihiin dhalinyaro waayo average ahaan markaan sheegnay 29 okay xog kale haysan taqriiban dad kale haysan xog kale xogtii kale average-ka مثلا wuxuu keenay 49 jir markii fiiri 100 qofood da'dooda diyaa soo qaato average ahaan ee 49 sheegto 100 kale soo qaato 29 sheegto hay different idea ka qaadan kara dadkan 29 jiraan groupkan markaan fiirinay almost qofku ku da'da sareeyo wuxuu jiri karaa maybe 35 كان وير هو جري كلام هاي maybe 28 27 around 29 واي dad kale koox kale da'dooda markaa fiirnay qofka ii sheego dhaw waxay dadkaas da'doodu waxay jiraan average ahaan
49 waxaan dareemaynaa labada group boqolka qofood boqolka qofood kii la sheego waxaan dareemaynaa boqolka qofood ayaa da'yar dadkan da' badan because dadkan 49 ku sheegnay average ahaan waxaa dhici karo maxay inuu jiro 51 53 54 55 60 waxaa jiri karo 48 47 45 43 42 marka boqolkan qofood markaan fiiriyo kan markaan fiiriyo kii la sheego central tenniskooda waa kala duwan yihiin waxaan dhihi karaa groupkan ayaa xoogaa da'yar haddii loo fiiriyo groupkan maxaa isticmaalnay central tendency maxaa isticmaalnay celis maxaa isticmaalnay dhexbartanka kadib maxaa u bixinahay dadkaas waxay jiraan markaan fiirnay more or less average ahaan 29 laakiin okay chapter 3ga waxaan ku baran lahayn wax loo yaqaano central tendency-ga iyo dispersion-ka marka kan wuxuu noo sheegay dadka da'dooda waxay jiraan 29 years old laakiin waxaa kaa maqan inaan fahmo dispersion-ka 29kaas aan ku sheegtay dadka inay jiraan qofka ugu da'da weynna meeqoo jiraa kan ugu yarna meeqoo jiraa kan aan ku sheegayso dispersion waa marka chapter 3ga haddaan soo koobno yani laba qayb ka hadlaya dadkii kala duwana da'doodii markaan soo qiyaasno average ahaan intaas ku siin doonaa laakiin waxaa u baahanta still information dheeraad ah oo kuu sheegay maxay dadka markaa fiirna da'dooda waxay jiraan 29 years old laakiin 29kaas waxaa loo jiraa maybe ka markaa xisaabino maybe 10 ayuu keenay oo maxaa lee marka 29 sano jiraan laakiin plus or minus waa 10 dispersion-kaaga 10 waaye maxaan ka wadnaa 39 sano ayay jiraan qofka noogu daaweyn 19 ayuu jiraa qofka noogu daada yar ama 29 waxaa noqday central tendency intuu yaala dhexbartanku yaala marka qofka waxaa leeyahay okay dadka markaa fiirnay qofka ugu daada yar maybe wuxuu jiraa 19 kan noogu weyna maybe wuxuu jiraa 39 maxaa isticmaalnay laba concept aan u naqaano central tendency-ga iyo dispersion-ka xagga waxaan kaga baxay isku xirka darsigii hore iyo ka maanta soo marka waxaa kii soo baran daa xasuustaan miinka mediumka modeka miinka waxaa u qaybinay arithmetic mean weight mean geometric mean mediumkana caada u shaqeynay iyo modeka xogtaas aan soo xisaabinay waxaa u naqaanaa xog aan nidaamsiisnayn waa markay tahay xogta ungrouped data maanta waxaan rabnaa sideen ku soo saari karnaa miinkeena mediumkeena iyo modekeena haddii xogteena tahay this way groupkan waxaan soo baranay miinka iyo mediumka iyo modeka xogtaadii ayadoo group ahayn inaan soo saarno maanta inaan baranaa markii xogtaada laga dhigay group sideen ku saari karnaa miinkeena mediumkeena iyo modekeena taa maanta aan barano insha allah markayla soco darsigeena maanta wuxuu ka hadlaya maxay that idea ka hadlaya okay miinka wuxuu lahaan doonaa formulooyin lahaan doonaa kala gedisan qaacidooyin lahaan doonaa kala gedisan okay waxaan soo baranay miinka midna waa population mean midna waa sample mean markuu population maxay waxaa u naqaanaa mu oo aan dhigaysaan kama mu waaye laakiin waxay x bar waa sample mean kana waxay waa population mean waa soo marka intaas maskaxda ku hayso ila soco xaggaas markaa marayno waxaan rabnaa marka sideen ku heli karnaa miinka markuu yahay group let me compare as bardhigo compare gareeyo waxaan dhihi jirnay miinka waxaan ku heli jirnahay isugeynta qiimooyinkaagii divided by n kan waxaa u naqaanaa markuu yahay ungrouped data laakiin maanta waa different waay formulka miinkaaga waxaa la kaan doonaa frequency kasta lagu dhuftay midpoint kasta loo geeyey la sugeeyey kadibna loo qeybiyey sugeynta frequency-ga saan waa loo qoraa marar qaarna booskii kan waxaa geli kara maxay n capital waa isku duwan okay marka kan waa population mean markaan joogno group waa population mean shalay markaan joogno ungroup markuu yahay qaanuunka isticmaal markuu laakiin uu yahay groupka qaanuunka isticmaal soo marka seen ku fahmi karnaa in uu qaanuunka meel ku qoran inuu yahay group iyo inuu yahay ungroup waxaan ku fahmi karnaa very simple and short way waxaan ku fahmi karnaa maxay haddii formulkaaga statistically uusan frequency ku jirin ku xisaabtan waxaad joogtaa ungrouped formula hadduu laakiin any formula oo frequency ku jiro f ku jiro qaanuunkaaga waxaad joogtaa group data tusaale ahaan qaanuunka markaan fiirno
waa mean waaye laakiin meankan ungroup waaye soo ku fahamtay frequency mode formulkan mean waaye waa group waaye soo ku fahamtay frequency wataa marka maanta qawaaniintan maanta kulli waxaa ku wada lamaanan waxa loo yaqaan f waa maxay frequency every formula oo frequency ku jiro ku xisaabtan waxaa joogta group data okay markan waa soo qaadanay maanta waxaan hor yaalo this one kana qaadano kan markaan ka shaqeynaa marka waxaa u baahanaa again formula ayaa wuxuu ku sheegi doonaa maxay maxaa u baahan tahay maxaas u baahneen marka formulka balan soo koobo si kooban aan qoro kadib maxay aan fahamno ka soo qaad maanta mesela maxay xagga waxaa sanaa mu equal to maxay isu geynta frequency-da oo ka soo dhufsan divided by isu geynta frequency-ga formulka markaan fiirino waxaan u baahannahay kow midpoint ma haystaa kan ma haystaa yes waa ku haystaa kow fine frequency ma haystaa oo gooni ah yes waa ku haystaa laakiin maxaa kaa maqan ayagoo isku dhufsan kadibna samgare because fiiri kor waxaa ay saaran fiiri korka markaa sameyna waxaa u baahantaa kow in midpoint kasta aan ku dhufto frequency ayagoo isku dhufsan markaas kadibna aan samkan because samkan waa last operation one kow waa ina hesha maxay every frequency oo ku dhufsan midpointiga oo kana noqon maxay kadibna aan isticmaalo maxay summationkayga kadibna aan u qaybiyo isu geynta frequency-ga mar kadib waxaa helay meanka marka okay guys marka waxaan rabnaa inaan diyaarsado column ay ku jiraan midpoint kasta iyo frequency kasta kadibna asam gareeyo marka waxaan ku khasbanahay inaan soo kordhiyo new column ee ku taal maxay frequency-ga times midpoint-ga markaas u dhufto maxay kadibna we can sum markaan sum gareeno qaybta kore haysan already kadib maxay waxaan u har doonto qaybta hoose okay marka waxaan rabnaa inaan maxay sum gareeyo inaan isku dhufto frequency kasta times midpoint frequency-ga way column-kan waa midpoint-ga way column-kan waa kan ku dhufo inta ku qor kan ku dhufo inta ku qor marka aan fiiri bal aan bowsiino waxaa dhici doono waxaan leenahay 2 alif times 7.5 waxaa soo baxayo 90 sagaashan waxaan leenahay 18 times 2 alif point 5 waxaa soo baxayo 22 225 waxaa isku dhacay 35 lagu dhuftay 17.5 waxaa soo baxay 612.5 waxaa le 40 oo kan ah times 22.5 waxaa soo baxay 900 ayaa soo baxay 10 times 27.5 waxaa soo baxayo 275 7 times 32.5 equal waa 227.5 kan ugu dambeeya waa 3 times 37.5 waxaa soo baxayo 112.5 jaa waxaan haysanaa isku dhufsanaanta frequency-ga iyo waxaan haysanaa midpoint-gaagii waxaan ku keenay kan times kan kadibna xaggan waxaa imaan doono isu geynta frequency-ga oo ku dhufsan midpoint-ga intaa markaa samgare maxay waxaa soo bixi doono 9 oo lagu daray 225 oo lagu daray 612.5 oo lagu daray 900 oo lagu daray 275 oo lagu daray 227.5 oo lagu daray 112.5 waxaa soo baxay 2442.5 okay intaan markaan fiirno qaybta sare waxaa imaan doonto 2442.5 intee ka imaaday qaybtan kore waay waxaa loo qaybin doonaa isu geynta frequency-ga ka markaa isu geyno waxaa soo bax 125 oo loo qaybin doono 125 equal to markaas
waxaa loo qaybinta 125 waxaa soo baxayo 19.54 yes 19.54 markaasaan waxaan ka duulnaa in la shaqeeyo la soo saar xisaabtaas waa very simplified laakiin waxaa muhiima waxa kuu soo baxay maxay ka tarjumayaan that's the question oo baahina fahmno okay waaya had marka fiiri waxaan haysanaa xagga waxa ku qoran age of people xogtan waxay kuu sheegaysaa da laga soo ururiyey dadyoogaasoo tiradooda gaaraysa 125 qofood maxaa ku keentay frequency waa 125 qofood ayaan qaadanay waxaan ka dhignay group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 group 6 group 7 group 12 persons oo kan ka mid ah age kana jiraan 18 kana jiraan intan dadkii waaye kana age-kii waaye marka intaan 125 qof inoo noqdeen marka xogtaa markaan fiirinay central tendency-geeda maxaad ku jawaabaysaa one question haddii in case lagu sii lahaa 125 qofood da'dooda ee saan ku tahay ee group ku tahay group ka dhigo ee noocan ka dhigo kadib report laga sugaayo oo ahaa dadkii aad xogta soo ururisay age-kooda bal wax nooga sheeg bal dadkaas meeqay jiraan da'dooda qiyaas ahaan markaan qiyaasno inaad tiraa cali soo wuxuu jiraa 30 heblaha waxay taa 50 waxaa ka ramay inaan ku soo gudbiyo specific figure number yar la fahmi karo numberkaas waa ka marka oo maxaa marka fiiri 125 qofood da'dooda ay dhiibtay markaan fiiriyay group ka dhigay analyze gareeyay miinkooda soo saaray simple way waxaan soo arkay dadkaas markaan fiirnay average ahaan celcelis ahaan waxay u badan yihiin 19.5 years almost 20 jiro wax u dhadhow ay dadkaas maxay yihiin wixii laga 20 aad ugu sareey aad ugu hoosay maxay waa yariye marka dadkaas markaan fiirnay average ahaan more or less markaan soo celinay dadkaas 20 jiro bal aan fiirno 20 ee ku aadan intaas shii from 15 ilaa 20 from 20 ilaa 25 intaas oo midas isi marka fiiri almost 40 iyo almost 75 ruux fiiri almost 75 ruux waxay jiraan from 15 ilaa 25 waa sax dadka badankood waxay u dhow yihiin from 15 ilaa iyo 25 20 may amala marka fiiri maxaa ku soo haray intaan waa 20 waa 30 qofood 30 ilaa 30 kaxay laakiin dadka majority waxay u dhow yihiin around 19 around 20 waa sax qof wuxuu dareemayaa dadkaas walaadadooda waa 20 jir waaye wax u dhow waan sax waa fiiri 30 qofood oo dhan intaan waa 40 intaan waa almost 25 qofood waxay jiraanba from 15 ilaa 20 meeyo kana ku darso marka almost waxa waaye waa 30 70 85 ruux almost waxay ku jiraan da'da 20 meeyada waa 19 years marka qof wuxuu dareemayaa ID wuxuu ka haystaa dadkaas meesha ku nool dad dhalinyaro waay 20 meey jiraan soo ku fahamtay test waxaa sameeyay kaliya maxay central tendency-ga amiinka because soo statistics maxay la shaqeeyo waxa ka muhiim maxay in la fahmo wixii ku soo baxay okay fine waxaan ka baxnay maxay miinka markuu yahay groupka maxay inoo haray inaan ka baxno maxay waxa loo yaqaan because chapter 3 ga daan xal ku laabto laba shay ka hadlay central tendency-ga iyo dispersion-ka central tendency wili kan bixin kan wiil ma gaarin dispersion-kii central tendency waxaan qaybinay group and group waxaan ka soo baxnay central tendency-ga an group waxaan soo raadinay mean-kiisa oo ahaa arithmetic mean weight mean geometric mean iyo medium-kiisa iyo mode-kiisa maanta waxaan ku jirnaa isla central tendency-gii oo laakiin oo group waa inaan fahamno maxay mean-ka medium-ka iyo mode-ka hadda maxaan ka baxnay mean maxaa inoo haray medium let's come guys medium-ka fiirno okay mid kale waxaan rabnaa inay isla ekaadaan almost mean-ka medium-ka iyo mode-ka maxaan haysanaa 125 persons maxaan rabnaa central tendency-gooda maxaan isticmaali karnaa mean medium mode waa inay keentaan maxay almost qiimo isku dhow maxay mean-ka medium-ka mode-ka mean wuxuu keenay 19.5 almost 20 waa inuu medium-keena keenaa around xulub mode-kana sidoo kale laakiin hal mid caqli maahan inaad tiraa central tendency xisaabinaya hal qiimo haysta
هل كان data هستا مين كده حوالي كان 19 كان medium كان 40 كان that's totally wrong وعربنا إني around سكو دوادان مين كا medium كا يمود كا مركان هزم هاي هل حبر كاس should be same okay